laba sano ayaa lagu dambi dhaafayaa haddaad soontid talaadada soo socota 27 Juun oo ah maalinta Carafa maalinta ugu fadliga badan sanadka oo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ugu jecel yahay waa maalin Ilaahay soo degayo uu dhahayo yaa waxay weydiisanayo aan siiya maalinta soonka aad soontid dambi dhaaf iyo ajir ayaad ku helaysaa maalin la duceysto waa maalinta ugu fadliga badan haddaba ku dadaal saddex arrimood midka ugu horeeya waxay tahay maalintaas inaad soontid midka labaad inaad ku dadaashid adkaarta midka saddexaad inaad ku dadaashid ducada midka afaraad inaad sii faafisid fiidiyogan asxaabtaada dhan si ay u ogaadaan iyagana ay ugu faa'iideystaan ajir ayaa haddaad maqasho quraanka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay tabaaraka wa tacaala kunniyadu isagu u bixiyay oo ugu yeedhayo waa sharfin ilaahay nabi maxamed oo sharfayo weeyaan nabigaasa ilaahay ummadiisa naga dhigay nabi dareenkeele nabi ummadnimo ku fikiraya nabi caalamka u damqanaya min maalinkii la soo saaray ilaa saacada qiyaamadu ay imanayso waxa bashar imanayo nabigu lahaa yaa jibriil ummati ummati yaa jibriil ummadaydi إننا مانتا مسلمين تي مانتا حالدو ذا كورما دولة بالغو كلا قيبيي قبل بالغو كلا قيبيي قبيل بالغو كلا قيبيي رير بالغو كلا قيبيي إنني أبتغي بمدح لسكو قليي الدنيا تفرق أدوية أمد وي كلا جيسا أدوية أمد اسكو مكانتو أمد إيمانك اسكو كانا أمد الدين اسكو كانتا أمد محبة إلهي اسكو كانتا أمد ilaahay marka uu ina leeyahay salaada tukada salaadu waa adiga dantaada ilaahay marka uu ina leeyahay aniga ay aamino in rumaysta iimaankaasi waa adiga dantaada ilaahay azza wa jalla marka uu ina leeyahay masaajida ku soo xidhnaado kaalaya waa wax adiga dantaada lagu sheegaya adiga faqiira ayuha al-insaan adiga faqiira asagu waa qani ilaahay adiga daciif oo taagyar أسأل سوى قوي القوي وإله عز وجل هذا مخلوق باتهاي أسأل نواكيكو أبو تأسكك لها بركة إلهي نحريستي سمرنا كم مر بمعنى دادتك ورنا إلهي ودع عبدانا وحب إلهي ومبيرنا يان هذا إلهي ودع عاصيانا وحب إلهي كمنا مصميان مالمها كمدا ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariish markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhisaynaa markaa buu nabigu wallahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yiri saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yiri inta aqalka dhisaysaa malagii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuulallah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannada iyo naarta hadda ay arkayaan isha ku hayaan birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaan adeegaysa qalbigu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbigu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbigu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbigu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatul qalbi bay culimmadu yidhahdaan waxaad eegto qalbigu galaa waxaad ku hadasho qalbigu galaa waxaad ka fikirto qalbigu galaa waxaad dhegaysato qalbigu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimmadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhiradu inta badan la sheego la xasuusto laga sheekeeyo labada maanta may nagu yariin mise nagu badan yihiin yaa
qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajiddooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynaayey sida masjidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyay adduunya u tartamayaan adduunya u kala badinayaan cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu ayaa lagu yidhi sif lana addunya adduunyada caliyo bal noo sifee markaasuu ku yidhi maa asifuhaa maxaan iigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shacuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bnu abi aalib adduunyada haddaad ii weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba war maa la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adiga dhiman ama adduunyada kaa hor dhaqaaqay xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabay xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo estarees iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jiri isaguna murug midna xisaabteedii baa dawakhisay midna walwalkeygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa soo sidaa maaha adduunka iskaga meedayneen asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika